salaamullaahi calaykum saaxiibayaal. barnaamijkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdooyin xasuus qiimo badan inoo leh oo dalkii ka idlaaday ama ka sii suulaya. balse inteenan u gudbin waxaan kaa codsanayaa inaad asxaabta kale u sheergaraysid si ay iyagana inoola xasuustaan waaye iyo maalmihii quruxda badnaa. balsweydii ma soo gaarta iyada oo cajalka raadiyaha qalin ama qori la dhex gelinayo oo horay ama gadaal loo wadayo? ma soo gaarta iyada oo lafta cambaha la iska sugayo si loo dhuuqo? waxaa la odhan jiray kaa jaray lafta xaali. u malayn maayo in hadda laba qof ay laf cambaha isla dhuuqayso. waagii hore waxaa la arki jiray nabar aan weligiis kaa bogsanayn ama aan kaaraysanayn. ma soo gaarta iyada oo biyaha fuustada ama haanta laga cabo oo qashinka iyo mulimuligooda funaanadda la ysaga miiro? ma aragtay iyadoo dacas kaa go'ay oo dab aad ku alxanto ama aad musbaar ku rakibto? mararka qaar gooma madow ayaa lagu kabi jiray, laakiin wiilashu ma jeclayn farsamadaas. ma u soo joogtay iyadoo subaxa hore jardiimada caday lala soo fadhiisto oo xaakada la ysugu faano? ma soo gaartay iyadoo anteenada raadiyaha marka ay jabto ama si fiican wax looga maqli waayo oo fiilo lagu dheereeyo? ma xasuusataa qaam oo u dhignaa 500, suul oo u dhignaa 1000, diish qaam? hadda waxaad maqlaysaa dhagax iyo 2 dhagax. ma soo gaartay marka xaflad ama aroos la aadayo oo dharka la kala amaahdo ama waxa loo yaqaana tabalcaaro? lacagtu 2 magac ayay lahayd, baalweyn iyo baalyar. 1,000 shilin waxaa lagu sarrifi jiray 5,000 oo na' 20 ah iyo koombo yar oo lows ah. waxaa dugsileyda badanaa faro kulul ku hayn jiray dhaso ama dharabow, faraha iyo lugaha u badnaa, tixri jidhka dhex geli jiray. ma aqaan siday ku dhici jirtay laakiin. ma u soo joogtay iyadoo darisku dab, birqabad, cusbo iyo waxyaabo kale ay kala qaadan jireen subaxa hore? sariiraha waxaa geli jiray dhiqlo ama kutaan, biyo kulul, raran ama bacaad kulul iyo sun ayaa lagula dagaali jiray. ma soo gaartay sariirtii la odhan jiray caasho dheer oo rayto ama fiilo ka samaysan? haddii ay dabacda meel lagu taago ama lagu tiiriyo ayaa jirtay. ma soo gaartay marka ay qoraxda dhici rabto ayaa faynuusta habeenka la shidan lahaa dhaladeeda deeb ama dambas lagu nadiifin jiray. qiyaastii xaafad walba waxay lahayd maamo caan ah oo muufo dubto. ciid ayaa waxaa laguu soo gadayaa shaar ama surwaal kaa yara weyn si ciidda dambe aad ugu iiddo, adigaa ka daba tegi doona camal. waxaa la arki jiray moos goobo fara badan oo raqiis ah, 1,000 shilin bes ayaana la gadi jiray. ma xasuusataa markaad qaanjeer yeelatid candhuufaa la iska marin jiray? kubaddii ugu horraysay dhallinyaradu ciyaaraan waxaa la odhan jiray bugle oo ka samaysan baco iyo qashin iyo sigisaan la isku duuduubay. badanaa guryaha dun iyo cirbad lagama weyn jirin. markii uu moobeel soo baxay, qof walba meesha laga damiyo oo koolka laga jaro ayuu suulka ku hayn jiray inta uu hadlayo. ma soo gaartay dhallinyarada baaskiil markay kiraystaan oo damcaan inay la gooyaan, ninka iskale baa baaskiil ka daba qaadan jiray oo soo qaban jiray. xaafad walba waxaa joogi jiray nin ama naag waalan oo dadka nafta u keeni jiray. ma soo gaartay iyadoo wadaadadu waddada dhinaceeda soo istaagaan oo dadka jidka maraya si layfa u wacdinaya? waagii hore sida haatan dadka iskuma dhex qasneen, qof walba kaalin ama wax lagu yaqaano ayuu lahaa. haddaba saaxiibayaal, qaar badan oo idinka mida waxaa laga yaabaa inaad u soo joogteen dhacdooyinkan. inoo soo qor waxyaabihii kale aad weli xasuusato. muuqaalkanna inoo sheergareeya si ay asxaabta kale inoola xasuustaan dhacdooyinkaas.